السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada muuqaal kale oo cusub. Mawduucan aynu maanta ka hadli doonaa daawadayaal waxa uu noqon doonaa faa'iidada wax akhriska. Intaanan muuqaalka gelin fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato subscribe saar. Sidoo kale haddaad muuqaalka ka heshay like saar mahadsanid. maadaama ay jirto Soomaali badan oo aan fahansanayn faa'iidada wax akhriska waxaan halkan ugu soo qaatay muuqaalkan inaan uga faa'iideeyo asxaab badan oo ku xidhan kanaalkayga. Dheefta wax akhriska laga helaa ma aha mid la barbardhigi karayo dhibka uu leeyahay, balse waa in la xusaa haddiiba uu leeyahay wax dhiba. Wax akhrisku waxa aan uga jeednaa qofka oo u hamuun qabo inuu helo macluumaad iyo warar kala duwan si uu kabo aqoontiisa, maskaxdiisa iyo fikirkiisa. Soomaalidu waxay ku maamaadaa war la hel yaaba tala la hel. wax akhrinta waxa laga heli karaa meelo kala duwan sida buugaagta, wargeysyada, buugaagga internetka ee aqoonta guud lagu kaydiyo, dhageysiga sheekooyinka ay soo tabiyeen dadka waaya aragga ah iyo wixii la mid ah. dadka reer Hindiya ayaa halahay sulle odhaahdan, if you want to know someone reading habits, pay attention when he is talking. If he talks meaning, he is a big reader, otherwise he is empty vessels. oo macnaheedu noqonayo haddii aad doonayso inaad ogaato qof wax akhris badan hadalkiisa uun dhegayso, haddii uu xog iyo macluumaad ku hadlo waa akhrista weyn, haddii kale waa meel madhan amba waa weel madhan. dheefta wax akhrinta laga helo laguma soo koobi karo hadal kooban amba qoraal kooban, balse waxay u baahan tahay in lagu qoro buugaag badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku sheegay aayaddii ugu horeysay ku soo dejiyey Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, waana iqra oo macnaheedu yahay akhri. kol haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku biloobay nebigiisii suuratul iqra oo macnaheedu yahay akhri, waxaan halkaas ka garan karnaa inay waajib tahay in wax la akhriyo. sidoo kale dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala khaas ku ah oo dad quraanka akhriya, meesha waxaan ka fahmi karnaa inay akhrintu ay meel sare ka tahay diinteena suuban, faa'iidadana u leedahay maskaxdeena, dhaqankeena iyo sidoo kale fikirkeena. dabeecadda qofka wax akhriya waxa ka mid ah inuu yahay mid aamusan oo aan isagu hadlin kuna hadlin wax walba, iyadoona taas ay ku keeni karto inaad noqoto qof wanaagsan oo akhlaaq leh. wax akhrintu waxa qayb ka ah oo fikirada sida wanaagsan kaasoo af Ingiriisiga loo yaqaan positive side, inuu qofku wax akhriyo ay u fudud tahay inuu kala xaliyo dhibaatooyin badan oo isaga darsa isagoo amba dadka kula nool deegaankiisa. qofka akhriyo buugaagta taariikhiga ah qalbigiisa kuma beeranto quusasho iyo rajabeel, waxa uu arkaya adduunyada maalmo meerto ku ah dadka. dadyowga adduunka ku nooli waxay siyaabo kala duwan u cabbiraan awoodda iyo muhiimadda akhriska. xigmado badan iyo mahmaahyo badan ayaa lagu cabbiraa dheefta wax akhriska. shacabka reer Albania ayaa xigmaddan isticmaala, those who can read and write have four eyes, oo macnaheedu noqonayo kuwa wax akhriya waxna qoraa waxay leeyihiin afar indhood oo ay dadka kala dheer yihiin. wax akhrisku waa furaha aqoonta. 70% ama 70% waana meelaha laga helo nooc kasta oo macluumaad ah. Angel Carter oo ah gabadh xigmad badan ayaa laga hayay xigmaddan qaaliga ah, reading book is like rewriting it yourself, oo macnaheedu yahay hal buug oo aad akhridaa waxay la mid tahay inaad laftaada dib u qortay buugaasi. xigmaddaas waa dhab iyo biyo kama dhabcaan, waayo aqoontii iyo nuxurkii ku jiray buugaasi waad heshay markaad si fiican u akhriday cilmiga buugaasi ku kaydsanaa, balse ma bannaana inaad dib u qorto buugaasi haddii aanad ogolaansho ka haysan qoraaga buugaasi. wax akhrisku waxa uu qofka u furaa fahanka iyo barashada ummadda kale ee adduunka ku nool. markaad akhrido buugaag kala duwan, qoraal uu diyaariye caalim, bare amba sidoo kale digtoor, siyaasi iyo waayeel waayo arag ah, dhammaan macluumaadkaasi wuxuu ku saamaxayaa inuu caqligaagu koro, kadib fahankaagu durko oo aad mar kasta meel dheer wax ka aragto. mahmaah Chinese amba Shiina ayaa tiraahdaa, after 3 days without reading
talk become flavorless, oo macnaheedu noqonayo 3 cisho wax akhris la'aan ah hadalku wuxuu noqonayaa bilaa micne. inta badan dadka falanqeeya arrimaha adduunka ka dhacaya waa dadka ugu akhriska badan. siday faalada u dhigeen ay inta badan wax u dhacaan, waayo waxay hayaan waayo hore u dhacay, kadib waxay barbar dhigaan kan socda, iyagoo mar kasta ka shidaal qaadanaya duruufaha ku xeeran wakhtigaasi. ugu dambayntii waa tii Soomaalidu hore u tiri hoostii eege hareertiima eego. dadweynaha adduunka ugu maskaxda fiicani amba talentiga leh waa kuwa akhrinta joogteeya amba caadada ka dhigta akhriska. marka la eego shakhsiyaadkii ugu maskaxda badnaa adduunka kuwii soo maray waxay dhammaan ku siinayaan inay taasi ay akhriska dadkaasi caado ka dhigteen. daawadayaasheeda sharafta lahow, maanta waxaa intaynu weeg warbixin kooban oo aynu kaga hadlaynay faa'iidada wax akhriska. fadlan haddaad ka heshay mar kale waxaan kugu celinaa inaad muuqaalka like saarto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.